هردو كلا أطبوه أقوم كوريا جبوتا magaalada ugu amniga iyo horumarka dhanka fanka ugu wanaagsan ee Soomaalida ee Djibouti ayaa markan waxa ay martigelin doontaa bandhig faneedyo aad u waaweyn kuwaasi oo ay ka mid yihiin bandhigii abid ugu weynaa ee loo qabto fanaan Soomaaliyeed kaasi oo loo qabanayo fanaanka Xabad Muuse sidoo kale wadankaasi waxa gaaray dhawaan fanaanin ka tirsan kuwa Somaliland gaar ahaan Mustafa Keinte iyo Rodo Keef oo kamid ah fanaanintii ugu da'da yar ee sanadihii ugu dambeeyay ama labadii sano ee ugu dambeeyay si xawliya geyga Soomaalida heesahooda aad looga taageero labadan fanaan ayaa waxay ka qayb gali doonaan bandhig lagu qabanayo dalka Djibouti bandhigaasi oo noociisa hore Afrika aan lagu qaban balse kaasi uu yahay bandhig cajiib ah oo fanaanintu ay ka qayb galayaan dalka Djibouti oo sanadihii ugu dambeeyay fanaaninta Soomaaliyeed si weyn ugu qulqulayeen bandhigyo cajiiban ay ku qabanayeen walow dadkaasi ay soo bandhigeen farshaxan lagu soo dhaweynayo fanaaninta bandhigoodana loogu qurxinayo ayaa fanaaninta Soomaaliyeed si xawliya u aadayeen dalkaasi bandhigyadii ugu dambeeyay ee dalkaasi Djibouti lagu qabtay waxay soo jiiteen indhaha caalamka gaar ahaan fanaaninta Soomaaliyeed oo si weyn ugu soo dabaaldegayay iyadoona bandhigyadaasi ay ka duwanaayeen kuwa dhulalka kale ee Soomaalida lagu qabto ama dalalka geeska kale ee Afrika ay ku qabtaan fanaaninta Soomaaliyeed dadkan ayaa lagu tiriyaa dad xadaarada iyo soo dhaweentaba saaxiib dhow la ah sidoo kalena qurxiya fanaaninta showyada ay ku qabsanayaan dalka Djibouti Mustafa Keinte oo kamid ah fanaaninta da'da yar ee sanadihii ugu dambeeyay aad heesahooda loola dhacay iyo Rodo Keef ayaana kamid ah fanaaninta doorkan shidi doona dalka Djibouti Maxamed Maame Saalax Sanaag Isma Aybi Suldaan Seraar iyo fanaanin kale oo Soomaaliyeed oo dalkaasi ku qabsaday bandhigyo waaweyn bilihii ugu dambeeyay ayaa si weyn showyadoodu caalamka u gaareen sidoo kalena Soomaalida dhexdeeda hadalhayn xooggan ay ka dhaliyeen tani waa horumar ballaaran oo ay ku tiirsadeen dadka reer Djibouti iyo xadaarad ay saaxiib la noqdeen dadka ku dhaqan Djibouti oo si weyn u soo dhaweeya Soomaalinimadana aad u jecel